Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo habboon saaxiibayaal idil ahaantiinba meel weliba aad joogtaan iyo waqti weliba aad daawanaysaan. Halkani waa janaalka warbaahinta wararka maanta. Alaaba waxaynu kugu soo gudbinaa barnaamijyo xiiso leh. Maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadi doonaa hadduu eebakaraali ahaado Atarisho Badiyo iyo saygeeda Nuradin KL oo xaaladoodu meel xun marayso. Ma ahan in ay kala tageen ama ay isfureen, balse xaaladda Atarisho Badiyo ayaa ah mid xun. waayo Atarisho Badiyo waxa ay ku jirtaa isbitaal ku yaalo isbitaalada ka mid ah kuwa ku yaalo Mareysa. balse waxa ay naga mudan tahay in aynu anagu u duceyno ilaahay caafimaad ha siiyo. waxa barteeda Instagram-ka soo dhigtay Atarisho Badiyo ayada oo dhehayso waan bad qabaa, laakiin waxa aan galay koomo. xaaladeydu waa ay xumeed, ma ahan wax been ah iyo mid iska mala'awaal ah, balse waxa ay sheegtay Atarisho Badiyo in ay ahayd xaaladeedii mid aad u daran oo heer ay gaartay in ay koomo gasho. Nuradin KL ayaa waxa uu bartiisa YouTube gaar ahaan community-ga ku soo qoray wuxuu uuna soo dhigay sawir ah Atarisho Badiyo. hadal uu ku soo qoray ayaa waxa uu ula jeeday: assalaamu calaykum dhammaan, waan idin salaamay. waxaa mahad iska leh Allahii ii fududeeyey xanuunkana iga qaaday xaaskayga. waxa uuna kale uu yidhi waad mahadsantihiin dhammaan eheladayda iyo walaalahayga igu xiran YouTube-ka. waa xaaskayga. waxaa mahad iska leh Allahii caafimaad taama ii siiyey. aynu u wada ducayno annaga oo ah bahda warbaahinta wararka maanta. haddii aynu nahay dad aad u xushmad badan, intaas ayaynu ku soo afmeerayaa barnaamijkeena gaarka ah aynu uga hadlaynay walaalaheen Nuradin KL iyo Atarisho Badiyo. haddii aad tahay mid ku cusub janaalka warbaahinta wararka maanta, waxaa si xushmad leh kaaga codsanaya in aad noo subscribe gareyso, muuqaalkana like gareyso, siina share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada. tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij ceenkan oo kale ah, sidaas iyo nabadgelyo.